dhankii dumarka sababtoo tahay waa unfair caawan ragkii inaan dhegeysto dumarka ay aqsadaan xaq u leeyahay inay khudbada ka qayb qaataan intaan marka aan u yeelin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka arrintii Cabdirashiid sheegay iyo arrintii Sheekh Cusmaan ay ka hadleen labadaba waxaa jira arday badan oo Puntland ka mid ah oo jaamacadaha dhigata waxaa jira marka arday ka qalin jebisay high schoolkii oo jaamacadaha awood weysay marka waxaa jira group halkan Edmonton ka dhisan oo aniga aan ka mid ahay groupka marka waxaan ka bixinaa jaamacadaha ardayda aan awood aniga hadda waxaa ii dhamaaday hadda ardaygii labaad oo jaamacadda ka saaray ardaygii saddexaad baan hadda sugayaa laba wiil baa ka baxshay waliba mid waa qalin jabiyo oo jaamacadda islaamiga ka baxay oo hadda maxkamaddu shaqo ka helay waa isoo wacaa sidii ilmo kaan lagu mid ah waxaan ka helay yiraahdo marka wax aad u wanaagsan marka qof bini'aadan aad noloshiisa wax ka bedesho qof bini'aadan كتبرير لو كان ما سويان وإلمو أما أبيس أنتي أما هوريني متى أما دعان كوجورو أن عدو جورو لكن كوالفاي ونقدر الجامعة ده أول نور هي الجامعة ده مركز القاهرة سكت عامل والجود بدن باناي مركز أدي وراء صدامر سنة كده وعقب على العجن جاري كل يوم بخاطر وعند 4 years وكذا marka waxa lacag aad u jaban oo aad qof bini'aadan noloshiisa waxa ka bedeshay oo reerkiisa u kacay oo reerkiisa oo aabihii hooyadii markaa dadkii markaa la joogo oo isaga geedu sameeyay nolol sameeyay marka intaas ka dhacay ma sii wadi karo waa arrin aad weyn barnaamijkeena baan dib u soo laabto waxaan u yeerayaa xaawo calitaan oo iyadana ka mid ah dadka caawa ka mahad doona ku soo dhawaad xaawo ما بفكر ولي فالسوا أبسط ولا قاطعي وضياشي هذا القاضي أيام وحن ربع وحير أو أيام تميلي هذا الكي هذا اللي قد بورم ويا لكن وحير أيام ربع إن عم قدر حدير الريال وضياش وحير هذين وعقب بلاوي هذا الكوام كل ميان إن dadkiisa inuu asagu isdalo baahan yahay wareedaha example bacdin siinaya dukaamada waaweyn matala basic food oo kale superstore oo kale I don't know inaad aragteen iyo in kale waxaa yaala boqsiyaa yaala waaweyn qof kasta oo adeegta wax ku rido waxa Afrika la siiyo oo gaaladu ay siisaa waa waxa iyo wax la mid ah inagu marka hana la soo gaaray inaynu niraahno mooyaane waa cuduraynu Afrika la qabno inaga keligeen maaha ummadu iyana wax qabsata adiga gaalo ku dhismaysa dalkaaga sida odayaashu ay ii sheegeen waxa wanaagsan qofka hadda caawa halkan yimid oo reer Puntland oo taageerada Puntland waqtigiisa u soo lumiyay I think inuu sanbishi inuu $20 bixiyo oo Puntland siiyo uu sadiidahay aniga sayla tahay waliba inta shaqaysa raga shaqeeya iyo gabdhaha baan waxaan badii lahaa $50 iska jara bishi oo Puntland leedahay waa meesha reer aruurtaada waa hadalkii Cabdirashiid waa meesha u socotid waa meesha u carabaysay waa meesha ay dhulka gaalada uga carab hada meesha ashki Cabdirashiid shiile sheegay wuxuu laga sheegay yaaliin see ugu cayaaraysaa carruurtaada meesha waa inaad quruxsataa mise gaal baad rabtaa inuu ku qurxiyo waa may gaaladu koombadaas ay meesha ku ridaan bay adduunkooda ku quruxsadaan taas waa وعقلي وحقا شهودة دوليلهن إبن لها وصوم له ما يشاء هذا ما
booskiisa